mas-uuliyiinta Finland waxaa loo sheegay in Ruushka uu qaadan karo go'aano muhiim ah oo waaweyn oo taabanaya masiirka gobolka sidaas awgeedna uusan hadhow haba yaraatee wax jixinjix ah uusan ka muujin doonin dareemada calaacalka iyo cabashada iyo catowga ku dhisan Ruushka sida muuqata waxa uu joojin karayaa gaaska uu siiyo dalka ay dariska yihiin ee Finland waliba maalinta ugu dambaysa ee Jimcaha sida uu qoray wargeys maxalli ah oo ka soo baxa dalkaas isagoo soo xiganaya ila muhiim ah oo aan la magacaabin wargeysku ma sheegin halka digniintu ka imaan lahayd wakaaladda wararka Reuters waxay isku dayday inay xaqiijiso balse xogo dheeraad ah way awoodi kari weyday inay hesho madaxweynaha Finland Sauli Niinisto iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sanna Marin ayaa sheegay in Finland ay codsan doonto inay ku biirto isbahaysiga difaaca reer galbeedka ee NATO daahitaan la'aan taasoo keentay in Ruushku uu wacad ku maro inuu jawaab ka bixiyo madaxweynaha dalka Finland waxa uu yiri For us joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize annaga ku biirista NATO cidna kama soo horjeedo waxaan jeclaan lahayn inaan sare u qaadno amnigeena si hal ama si kale ah annagoo ka fikirayna xubinnimada NATO laakiin ma ahan ciyaar eber ah haddii Finland ay kordhiso ammaankeeda ma ahan cid kale ka fogow sida muuqata qorshaheena difaaca qaran ee ku biiritaanka isbahaysiga mid aan uga cararayno Moscow ma aha mid aan ku dhibaataynayno Putin iyo maamulkiisa ma aha balse danaha iyaga qaranka nabadgelyadiisa ayay ka dhigan tahay haddii la fasiro fariinta uu hogaamiyaha ugu sareeya dalka Finland ka dhawaajiyay inta badan gaaska laga isticmaalo Finland waxa uu ka yimaadaa Ruushka laakiin gaaska ayaa kaliya ka 5% isticmaalka tamarta sanadlaha ee dalka si kastaba ahaatee luminta inta badan sahayda gaaska waxay la macno tahay shirkadaha waaweyn ee warshadaha sida Neste iyo Metsä iyo sidoo kale shirkadaha kale ee kaymaha warshadaha kiimikada iyo cuntada waxay u baahnaan doonaan inay helaan ila tamar oo kale ama ay la qabsadaan wax soo saarkooda meeshanteeda dawladda Finland waxay sheegtay inay diyaar u tahay suurtagalnimada in dariskeeda bari ay jarto gaaska dhamaadka may taasoo jawaab u ah diidmada Finland ee ah inay u hoggaansato dalabaadka Ruushka ee bixinta gaaska in lagu bixiyo dabcan lacagta dalkaas ee rubalka xiriirka dhuumaha tooska ee Russia Finland iyo Balticska ayaa aad ugu tiirsan gaaska Ruushka marka loo eego wadamada kale ee Yurub haddii sahayda gaaska Ruushka la dhimo ama la gooyo Finland, Estonia, Latvia iyo Lithuania waxa laga yaabaa inay yareeyaan baahida